إلهي ومدورنا قانا الناطور الله يولى بطل بطيرون ضد مسلمين إلهي نقدق النعمة مسلمين ماذا إلهي النسي ضد كمسلم كي هنا وإني وناقة إلهي سي أفرها بدل له أي كحمد النقان الضوامين النهاي الدون ماذا نمركورها اللوغاد إلهي في آخرة وناك هاي النسيو إلهي والدين تيدي متنا ونحريسو إلهي أننا نوقد ونحريسو إلهي وحي مسلمين ونحريسو dadka bini'aadankii haddii ay isu damqan waayaan oo waxba isku qaban waayaan waxba iskuma aha sida xoolaha kale u noqdaa wuu gaadhoobaa aad baan ugu mahadnaqaynaa inamada keenay sheewasha ee reerkoodii u qodaaya waxay ka cabaan oo ay kari waayeen walaalnimada iyo wada dhalashadana wax ka weyni ma jiro marka wax la isku qabtaana dadku ay isku jiidnaxaan baa wax isku yihiin تيانفودي وحبتنا لبلي إسكدونين تتك بنادن كان وحلو دورا إلهو نو دور بالينا ما دورنا قانه إلهو كومدا وحوق بنايا إلهو كويغا كدك إيغو آن ميل بتجين بي وحوق بتين أو أدركسان أي ما أنت وحا قبنايان أدبان وجود عيننا إلهينا وقولين يا تتك اسكو قلبي جينا ما بتشبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan mahadnaq balaarin soo jeedinayaa odayaasha deegaankan maraaga ee sida qiimaha iyo qaayaha leh noo soo dhaweeyay waxa kale oo mahadnaq u jeedinayaa musharaxiinta xisbiga wadani ee fuliyay in ay ballagan ay tulkeed loo yihiin ay dhooba qaadaan oo ay kharash ku bixiyaan isla markaana iyaguna ay ugu hiiliyaan wixii reerka halkan ka degan codkooda ayaan iyagana u hayaa qadarin iyo maamuus weyn marka hadalka ku dari maayo waxay waa labada mahadnaqeen reerka iyo ugu mahadnaqeen musharaxiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta mahadnaq u jeedinaa nimanka tolka ee musharaxiinta ah ee u horay iyagoo cudba loogu ridin oo ogeyn in loogu ridiyaan kale dadkoogii inay ballay u qodaan annaguna waxaan u ballan qaadi doonaa codkayaga inaanu siino haddii ilaahay yidhaah saasaan kusoo dhaweynaa wasalaamtii waad mahadsantihiin inamada ilaahay baa mahadle aad baad mahadsantihiin inamada ku soo talagalay inay halkaa ka sameeyaan ballay biyo xidheen ay u qodaan tolkood iyaga oo ka doonaya iyaguna cod aad baanu iyaga iyo xusbiga ka socdaanba ugu mahadnaqaynaa ilaahay guushaa siiyo maanta waxaanu joognaa xaflad weyn oo ka dhacaysa maraagi waxaanu halkan ku soo dhaweynay musharaxiin ka socda xisbiga wadani oo annaga haddii aanu nahay reer maraa ahmiyad weyn noogu fadhiya oo baahidayadii ka jawaabay eelkiina cagaftii noo keenay oo lacagtii bixiyey markaa waxaanu leenahay jasaakallah waxaananu ka ballan qaadaynaa halkaa codkaa inaan cid kale hungureen nimankaa mooyaane kun meel kasta oo looga maqlayo codkaynu soo gaarayo waa in arrinkiisa aynu ku dhammaaday maraagu wayna taa ku ogaataan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi araxmaani araxiim waxa weeyaan halkan xaflad wanaagsan ayaanu joognaa oo ka dhacday maraagii markaa waxa weeye xafladda inamada ka sharaxan xisbiga wadani ayaa qodaya dhaamkii loo baahnaa ee reerkaasi u baahnaa ee deegaanka looga baahnaa ayaa qodaya waxa weeyaan markaa iyagoo oon meelba gaadhin ayay u hureen kharashkii ay haysteen marka haddii aanu nahay tuulada maraaga waxaanu leenahay codkii waxaanu siinaynaa labada musharax ee ka sharaxan wadani cid kale ma siinayno shuruuddu aanu ku xidhnayna way fuliyeen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت أو سنة عصبة إلهي إنه بركيه لبضو كوني وكوبيا لغاتن كاوان ونهاي مرشحين تا تبعودوا يهين كقيب قلان دور الشرع سي إلهي إذن كيدا عيسى لبضو كوني وكوبيا لغاتن كوا سنة كاني
oo golaha deegaanka iyo ka baarlamanka waxaanu joognaa oo aanu ka soo hadlaynaa imika deegaanka Maraaga oo aanu halkan ka qodayno dhaam u baahnaa kaliya dhoobaqaad ma sii wax weyn oo aanu halkan ka tari karna imika ma jirto hase ahaatee intaasiba waxaanu ka marxinay sawirada waaweyn ee Hargeysa la gelin lahaa lacagtii aanu ku bixin lahayn ayuu baanu dhaamkan ku qodaynaa kumanaan lacaga ayay noqotaa waxaan ku dhiiri gelinayaa dhammaan wixii murashaxiinihii mar haddii dalkeenu yahay dal saboola oo busaaradina ay hadhaysay in lacagtaa loo isticmaalo lagu kharash garanayo sawir gidaar ku yaalla oo Hargeysa ah in dadkooda u baahan dib loogu celiyo ee waliba codkana laga doonayo taasi way igu raacay maxamuud oo agteeda taagan aniguna waan ka yaro bareeray haddaba nicmada ugu weyn ee Ilaahay dadkiisa ku manaystay waa biyo la'aantuna meel kasta way hadhaysay jasaa'iba Ilaahay ka siinayaaba qof kasta oo arrin biyood wax ka tara waxa halkan aanu ku soo marnay shalay iyo maanta tuulada Laalays oo biyuhu aad ugu yar yihiin wixii biyaha aanu halka ka tari karay waanu ka tarnay shalay tole waa lagu shubay maantana waxaanu qodaynaa dhaamkaasi xaafadaha hareeraha oo dhami ay deganaayeen u dhawaa oo ay ka cabbi jireen biyaha halka ay noqonayso in meel fog dameero looga dhaamiyo ilaahay idankii kolka uu yimaado roobku dhaamkaasi waxaan rajaynayaa inuu noqdo kii lagu reeyo ee lagu naaloodo wasalaatu wasalaam waxa kale oo halkan aan ka mahad celinayaa dadkii tolka ahaa ee halkan deganaa ee Maraaga ee sida diiran noo soo dhaweeyay inkastoo ay ku faraxsan yihiin annaguba imaanshahaasi iyo iska warhayntaasi maanta oo halkan ay noogu diyaariyeen qado wanaagsan oo macaan waanu ku mahadinaynaa is aragaasina wuxuu sii socon doonaa mid haddii la doorasho timaadii haddaanay imanba mar walba waa la isku baahan yahay kana maqnaan mayno kana adkaysan mayno baahida ay qabaan halkan laga wada markhaati furay maanta waxaan joognaa deegaanka Maraaga oo ka tirsan gobolka Maroodijeex waxaa ku soconay wafdi ballaaran oo ka socday xisbiga wadani aniyo musharax maxamed cali cabdi iyo odayaasha kale ee xisbiga ka tirsan iyo kuwa deegaankan ka soo jeeda runtii nala socday kuwa aan ugu nimid aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa deegaankan waa deegaan ballaaran baahiyo kala duwan baan runtii ka muuqda oo maanta taa aynu joognaa ay kow ka tahay in ay biyo la yihiin dhaamkii yar ama baligii ay ka cabayeen wuu aasmo muddo dheer baa cid wax ka qabatay aanay jirin maalmihii dhaweedaynu deegaamada maraynay aanu diiwaangelinta dadka ku wacyigelinaynay baa waxaanu daraasaynay baahiyaha kala duwan ee deegaamada aanu maraynay ka taagan deegaamada aanu ka sharaxanahay gobolka Maroodijeex baahiyo kala duwan baa ka jira waxaa ka jira iskuulkii Maraaga oo xiran ma laha goobo caafimaad deegaan ballaaran weeyaan oo ugu yaraan ilaa 1 ilaa 2 kun oo cod ay ka footeeyaan waqtiga doorashooyinka waxa aanu go'aansanay aniga maxamed maadaama inta badan la yiraahdo cod un baa loo doontaa maadaama inta badan la yiraahdo dadka marka loo codeeyo waxba lagu ma soo celiyo dadkii loo codeeyay waxba uma qabtaan deegaanadan in aanu anagu muddada doorashada ka hadhay ka hor aanu wixii aanu ka qaban kareyna ka qabano ballan qaadnana runtii inaanaan noqon kuwii hore oo kale oo marka aanu codka hele haddii ilaahay dhahdo aanu matali karna iyaga si rasmi u matali karna oo sharci ah in aanu ku matalo baahiyooda sidii aanu wax uga qaban lahayn deegaankan sida ka muuqata cagaf baanu keenay balligan baanu ku dhooba qaadayna aasmay muddo dheer ama safar dheer bay u galaan in ay faro weyne iyo deegaanada ku dhowdhow oo ilaa saacad ilaa nus saace baabuurta ay u socoto runtii ay u tagaan iskuulka ardayda waxay u socotaa ilaa yaca daroosh oo isna masaafad dheer oo saacad iyo in ka badana ay u socdaan caafimaadna waxa ugu dhow Hargeysa ugu dhow marka waxaanu dareenay in ay tahay lama huraan inaanu horta maanta cagaftan keeno deegaankan bal markuu roobku doo ay biyo helaan labadii cisho saddexdii cisho u dambeeyayna
waxaanu biyadhaan ka wadnay deegaanka laaliska oo isna u dhow Hargeysa iyo Arabsiyo oo baahiyo kala duwan isna ay ka jirto iskuulkii ka xidhmay caafimaad aan lahayn laba bilood ka hor lafteeda ayaanu deegaankaasi booyado u qaybinay biyahaanu beriga u geynay muddo 2 bilood iyo saayid bay cabayeen weegan bay biyihii ka gooyeen haddana waxaanu ka galnay halka biyadhaan waxaanu ballan qaadayna markaa deegaamada aanu cod ka doonino meel kastaba ha ahaadaan wixii baahiyadeenu ka qaban karno inaanu ka qabanno gaar ahaan dadka deegaankan Maraaga oo runtii deegaan aad u qurxoon leh xoolana leh sida aanu deegaankooda iyo xoolahooda iyo noloshooda wax badan uga bedelahay maanu ballan qaadayna waxaana looga mahadnaqaynaa runtii maanta sidii ay noo soo dhaweeyeen si ay noo soo roeyeen iyagoo og in dad badan cod ka doonayaan iyagoo og qayladhaantoodaas inay in badan socotay oo la soo ajiibi waayay inaan aniga musharax maxamed cali oo cabdi maanta aqbalnoonu ajiibno oo noqono kuugu soo horeeyay iyaguna ay ku farxaan anana runtii aan ku farxnay si noo sooriyeen runtii aad iyo aad bay labadeedaba u taabanaysaa dareenkooda dadka ka soo jeeda deegaankan ee qurba jooga ama dalka gudihiisa joogana runtii waxaan ugu baaqi lahayn inay ka qayb qaataan dadkooga si aanu anaguba ugu soo noqdaan waa ehelkii waa nolosha halka ka soo bilaabantay waa halkay ka yimaadeen inay wax ku soo celiyaan wax ka qabtaan sidoo kale waxaan ku darayaa hore waxaan u dhagax dhignay deegaanka Abaarso baahiyo ka jiray ugu weynaa markaas iyagu dalbadeen oo ha in aan saldhig halkaasi ka dhisno xukuumadda lafteedu baahi weyn u qabto saldhigaasi booliisku waa aasaaskii nabadda maadaama oo duruufo fara badan jiraan nabadgelyaduna muhiim ka tahay nolosha si biyuhuba muhiim ugu yihiin nolosha waxaan ballan qaadayna oo hawshaasi oo muddo intii diiwaangelintu socotay dib nooga dhacday inaanu iyagana dib u abaabuli doono cid aliyaale cidii gacan ka geysanaysa mashaariicda aan wadno oo dhan runtii aan ugu baaqayna inay doorkooda ka soo qaataan hadday dadka deegaanka yihiin iyo hadday dadka qurba jooga yihiin iyo hadday xukuumadda Soomaaliland tahay oo runtii maanta iyagu dooran mas'uuliyaduna saaran tahay anana marka nala doorto haddii la yiraahdo inta ayaan ka badanba aan u qaban doono ku soo celin doono haddii la yiraahdo aad baad mahadsantihiin waxa halkan maanta xalfad baa ka dhacday Maraaga la yiraahdo waxa noo yimid niman musharaxiinta wadaniga waxaanu ku soo dhaweynay markaa gacmo furan waxay noo yimaadeen markaa waxaanu yiraahdeen ballay baanu idin qodaynaa deedna waxaanu yiraahdaa wixii balligaan loo qoda codka baan ka codsanay ayaanuna waynu idin rumaynaynaa codkaasi iyaguna ballayu weeba ku jirta cagafti horena looma arag musharaxiin iyagoo waxba loo qaban wax qabta horta Soomaaliland horeba ma maqal